wax badan oo maanta aad u fudud waxay ahayd mid aan suurtagal ahayn amaba qofka caqligiisa aan ku soo dhici karin. qiimaha lacagta ee $100 waqtigaasi waxa uu dhigmayay $426 oo maanta si kale haddii aan u sheegnana $100 ee waqtigaasi waxa uu goynayay $426 oo maanta waxa ay goyso. isgaarsiinta ugu fiican ee waqtigaasi jirtay oo ahayd telefoonada guryaha waxay ahayd mid aad ugu qaaliya dadka intiisa badan. waxayna tani ahayd hordhaca bilowgii isbeddelka warisgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, iyadoo sannaduun ka hor Bill Gates iyo Paul Allen dhammaystireen programming language-koodii ugu horreeyey ee bilowgii personal computerka, kaasoo la odhan jiray Altair Basic, ahaana bilowgii iyo asaaskii hore ee kumbaniga Microsoft. kowdii bishii Abriil ee sanadii 1976 ayaa Steve Jobs iyo Steve Wozniak markii ugu horreysay bilaabeen asaaska shirkadda Apple. labada nin oo ahaa saaxiib waxay kulmeen markii ugu horreysay sanadii 1971 waxaana isbaray nin kale oo labadoodaba la ahaa saaxiib dhow lana odhan jiray Bill Fernandez, iyadoo daada Steve Jobs ay waqtigaasi ahayd 16 sano oo keliya halka Steve Wozniakna uu ka jiray 22 sano. Steve Jobs waqtigaasi waxa uu wax ka baranayay college la odhan jiray Reed College. Steve Wozniakna waxa uu ku jiray jaamacadda California, iyadoo markii dambe labadooduba ka tegay waxbarashada sanadii 1975. markii ugu horreysay inay mudoobaan shuraakana noqdaan labada nin waxay bilaabantay kadib markii Steve Wozniak oo ahaa nin xirfad u leh aadna ugu fiican electrical engineering-ka weliba ahaa qof isagu iskii wax isu baray uu farsameeyey mishiin yar oo telefoonada adduunka oo dhan lagu wacan karayay si lacag la'aana, kadibna uu bilaabay inuu ku iibiyo lacag yar oo jaban, taasoo markii dambe soo jiidatay Steve Jobs, isla markaana uu bilaabay inuu kula taliyo sidii ay u asaasi lahaayeen kumbani iyagu ay leeyihiin lacagna uga samayn lahaayeen. iyadoo tiknoolajiyaddu ahayd wax bilowa, kombiyuutarkii u horreeyey ee ay soo saaraan waxay ku farsameeyeen geeraajka guriga Steve Jobs labadiisii waalid ee soo koriyey ay degganaayeen. maadaama aanay lahayn awood ay ku kiraystaan meel u gooniya amaba ay ku iibsadaan, iyadoo labadooda midkoodna aanu hayn wax lacaga oo ay ku kharash gareeyaan amaba ku soo iibsadaan wixii hardware ay dibadda uga baahan yihiin ee ay ku farsamaynayaan kombiyuutarkan ay rabaan inay soo saaraan, waxayna taasi ku kaliftay inay ka soo amahdaan dukaan iibiya qalabka kombiyuutarada iyo elektarooniga oo la odhan jiray Cramart Electronics, taasoo ahayd waddada keliya ee u furan, waxaanay ballan qaadeen inay muddo 30 cisho gudahooda ay ku soo celin doonaan deynta lagu leeyahay. intaa wixii ka dambeeyeyna labadoodu waxay u howlgaleen waa Steve Jobs iyo Steve Wozniak inay habeen iyo maalinba u soo jeedaan dhexdan oo xidhaan sidii ay u dhammaystiri lahaayeen uguna guulaysan lahaayeen kombiyuutarkan cusub. dadaal baa midho dhalee farxaddoodii ugu horreysay waxay kawsatay markii ay ku guulaysteen inay dhammaystiraan kombiyuutarkoodii ugu horreeyey, kaasoo ay u bixiyeen Apple One. qiimaha lacagta ee lagu iibinayay waxa uu dhammaa $666, iyagoo ka iibiyey 200 oo xabo oo ka mid ah kombiyuutarka Apple One dukaan la odhan jiray The Byte Shop. wixii intaa ka dambeeyeyna waxay iska bixiyeen lacagtii deynta ahayd ee lagu lahaa. kombiyuutarkan Apple One oo hadda kan inooga muuqda shaashadda ma ahayn mid muuq iyo qaab ahaantoona aad ku suurayn karto inuu yahay kombiyuutar, mana uu lahayn wax mouse ama shaashadda kombiyuutarada. haddaad maanta meel ku arki lahaydna waxaa laga yaabaa in aanay marnaba maskaxdaada ku soo dhacdeen inuu kani bari ahaan jiray kombiyuutar la isticmaalo. waxa keliya ee la xusi kara ee uu lahaana waxay ahayd inuu ku xidhmi karayay shaashadda TV-ga. intaa wixii ka dambeeyeyna waxay u guntadeen geedi socodka horumarka ay ku samaynayeen dadaalkoogii si ay ugu tallaabsadaan soo saarista kombiyuutarkoodii labaad.
sanadkaa sanadkii xigay oo ahaa 1977 waxay ku guulaysteen soona bandhigeen kombiyuutarkoodii labaad kaasoo loo odhan jiray Apple II. sidaad u jeedaan muuqaal ahaan waa mid aad uga duwan kii hore. waa waxaad u arki karto inuu kombiyuutar yahay iyadoo kan cusub lagu soo kordhiyey shaashadda kombiyuutarada, keyboard iyo weliba mouse. waxa kale oo lagu xidhi karayay printerka lagu daabaco warqadaha. storage-ka wax lagu kaydiyo ama lagu save gareeyay ee uu lahaana waxay ahayd laba nooc oo kala ah cajaladaha yaryar ee la geliya rikoodhada iyo disk 2 oo ah floppy disk drive. size-keedu uu dhammaa ama uu ahaa 5 inch iyo weliba rubuc. waxaanu noqday kombiyuutarkani mid albaabo badan u furan. intaa wixii ka dambeeyay Apple waxa ay noqotay shirkad jirta oo yeelata shaqaale u shaqeeya, waxaana safka hore kula tartantay shirkado kale oo soo saarayay kombiyuutarada ee ay ka mid ahaayeen Microsoft, IBM iyo kuwa kale. 1984 oo ah sanad ka hor waqtigii ay Microsoft soo saartay Windows-ka, shirkaddan Apple waxa ay noqotay kombanigii ugu horeeyay ee sameeyay kombiyuutar leh operating system ah graphic user interface, iyadoo macnaha guud ee programmada graphic user interface yahay in aad kaliya garan karto wixii aad rabto. tusaale ahaan programmada Windows-ka oo kale, halka MS-DOS uu ka yahay mid aad ku qorayso command wax kasta oo aad rabto. kombiyuutarkaas ay soo saareen oo noqday bilowgii hore ama isbeddelkii ku yimid operating-yadii hore ee badanaa ahayd inaad command ku qorto wax kasta oo u baahan tahay, waxa ay ku bedeleen mid aad kaliya garan karto wixii aad u baahan tahay inaad ku samayso. 1985 waxaa shirkadda Apple ka dhex qarxay oo ka dhex bilaabmay muran iyo khilaaf xoogan kaasoo ka dhashay suuq xumo la soo diristay kombiyuutaradii ay soo saarisay shirkaddu, hoos u dhacweyna ku riday, iyadoo eedda oo dhan dusha laga saaray inuu qaladka leeyahay Steve Jobs. waxaa shirkadda ka tegey oo iibiyey dhammaan saamigii uu ku lahaa saaxiibkiisii la asaasay shirkadda ee Steve Wozniak, isagoo ku eedeeyey inuu Steve Jobs u wada shirkadda jiha qaldan. kadibna kulan ballaaran oo ay yeesheen dhammaan dadkii saamiga ku lahaa shirkadda waxaa cod buuxda la isku raacay in shaqada laga eriyo ama cayriyo Steve Jobs oo ahaa ninkii koowaad ee shirkadda asaasay. Steve Jobs oo aad uga cadhooday waxa ku dhacay iyo sida dibadda looga dhigay shirkaddii uu asaasay, waxa uu qiimo jaban ku xaraashay dhammaan saamigii uu ku lahaa shirkadda. intaa kadibna waxa uu bilaabay asaaska Pixar Animation Studio oo ah mid lagu farsameeyo filimada animationada. waxaana uu noqday mid ku guuleystay in ka badan 22 award ama abaalmarin. haddana waxa uu ku xigsiiyay asaaska company kale oo loo oran jiray Next, kaasoo ahaa shirkad kombiyuutarada. kadib 12 sano waqtigii shaqada laga eriyay Steve Jobs oo ku beegnayd sanadii 1997 waxa shirkadda Apple la soo diristay khasaare aad u xooggan iyo maalmo madow. way ku dhawaatay in la xaraasho, kaasoo sababtu ahayd in shirkadda Microsoft ay gabi ahaanba ka qaaday suuqii. kadib markii ay soo saartay Windows 95 horaantii sanadii 1995 iyadoo Microsoft iibisay in ka badan 7 milyan oo koobi oo ah Windows 95ka shantii weeg ee ugu horeeyay. taasina waxay keentay in dib loo soo sasabo loona yeeray Steve Jobs si uu uga badbaadiyay shirkadda in albaabada loo xidho, iyadoo ay ka dhinayd 90 cisho oo kaliya xilligii shirkadda albaabada loo xidhi lahaa lana xaraashi lahaa. waxa ku soo laabtay dibna ugu soo noqday madaxii sare ee shirkadda Steve Jobs, inta badanna iibsaday saamiyadii shirkadda. isagoo ahaa nin hibo u leh maamulka iyo ganacsiga, waxa uu isbeddel ku sameeyey habu socodkii iyo wax soo saarkii shirkadda 1998 oo ah sanad kadib waqtigii uu ku soo laabtay shirkadda. waxay Apple farsamaysay kombiyuutar cusub oo loo oran jiray iMac, suuqana keentay, kaasoo noqday 1998 kombiyuutarkii ugu fiicnaa weliba ugu iibka badnaa waddanka Mareykanka. saddexdii bilood ee ugu horeysay dakhliga faa'iidada ka soo galay iibka kombiyuutarkani waxa uu ka batay dhammaan isugeynta waxa ay shirkaddu iibisay ama heshay saddexdii sano ee ka horeeyay la soo dhaafay. shirkaddana waxay ka soo laabatay dib u dhici iyo khasaarihii.
iyadoo uu sii xoogaysanayay suuqa iyo magaca shirkadda Apple. bishii Oktoobar ee sanadii 2001 waxay shirkadda Apple ku dhawaaqday suuqana keentay product cusub oo la yiraahdo iPod, kaasoo ah mid lagu kaydiyo laguna dhageysto muusiga. waxa uu noqday mid soo jiita indhaha caalamka, waxayna iibiyeen in ka badan 350 milyan oo xabo, iyadoo bilowgii hore qiimaha xabadda la siinayay $399. isla sanadka gudihii waxay Apple soo saartay operating system cusub oo la yiraahdo macOS 10 oo ah mid aad loo qurxiyay aadna loo habeeyay. waxa ay noqotay markii ugu horeysay ee dad badan oo isticmaali jiray operating systemka Microsoft ee Windowsku ay u soo wareegaan kombiyuutarada ay soo saartay shirkadda Apple. 2 sano kadibna waxa kale oo ay samaysay shirkadda Apple kaydka muusiga ama music library-ga ugu weyn adduunka ee iTunes, kaasoo sanadkii ugu horeeyay laga iibsaday in ka badan 50 milyan oo heesood. waqtiga aynu joognana waxa maalin kasta laga download gareeyaa ama laga dejistaa in ka badan 500,000 heesood. tani intii Steve Jobs dib ugu soo laabtay shirkadda, guusha iyo wax soo saarka Apple waxay noqotay mid joogto ah. 2007 waxay Apple ku dhaqaaqday tallaabo cusub oo hor leh, ahaydna mid lama filaan ah. waa bilowgii iyo asaaskii telefoonada caaqilka ama waxa loo yaqaan smartphone-ka, iyadoo fikirka iyo farsamada design-ka intaba uu lahaa Steve Jobs. bishii June ee sanadii 2007 waxay Apple iib keentay mobilkeedii ugu horeeyay ee telefoonka iPhone, kaasoo aad loola dhacay, noqdayna mid soo jiitay bulshaweynta caalamka. wuxuu albaabo cusub u furay soo saarka telefoonadii gacanta, isagoo ka dhigay mobiladii kombiyuutar yar oo aad jeebka ku qaadan karto. 3 bilood ee ugu horeeyayna tirada mobilada ay iibiyeen waxa ay noqdeen 1.4 milyan iPhone. intaa wixii ka dambeeyayna waxa uu noqday mid si joogto ah ay soo saaraan moodallo cusub sanad kasta, horumar iyo isbedel joogto ahna ay ku sameeyaan, iyadoo dakhliga ugu badan ee shirkaddu inta badan uu ka soo galo iibka mobilada iPhone. farsamada iyo guulaha Apple waxa ay noqotay mid aan kala go'ol lahayn ama bay si taraya. hindisaha iyo ikhtiraca Apple-na muu noqon mid halkaa ku joogsada, ee waxa uu noqday mid sii kordhaya. bishii January ee sanadii 2010 waxay Apple ku dhawaaqday soo saarka product kale oo hor leh kuna cusub indhaha caalamka, kaasoo ahaa iPad-ka. waxa uu noqday mid soo jiita dadyoga adduunka oo dhan, aadna loogu riyaaqay, hadal hayntiisuna ay badnayd. bishii April 3 ayay ahayd maalintii ugu horeysay ee ooda laga qaaday shirkadda Apple-na ay bilowday iibka iPad-ka. isla maalintii ugu horeysayna waxa website-ka shirkadda Apple ay leedahay laga iibsaday 300,000 oo xabo. 28 cisho kadibna waxay shirkadda Apple sheegtay inay iibisay in ka badan 1 milyan oo xabo. ku dhawaad sanadun kadib waqtigii ay Apple soo saartay iPad-ka oo ku beegnayd bishii Oktoobar ee sanadii 2011 waxa cudurka kansar ku dilay amaba u dhintay madaxii sare ee shirkadda, isla markaana ahaa ninkii koowaad ee asaasay shirkadda ee Steve Jobs, isagoo ahaa ninka leh fikradda iyo farsamada design-ka intooda badan waxa ay soo saartay shirkaddu. si ka duwan sida shirkadaha kale, Apple waxa ay leedahay store ama dukaanno u gooniya kuwaasoo lagu iibiyo product-yada ama waxay shirkaddu soo saarto oo kaliya. waxa ka shaqeeya oo u xil saaran dad u gaar ah habaynta qaabka ama dhisaynka alaabta iyo muuqaalka guud ee store-ka. dukaamada Apple Stores waa kuwa si toos ah ay u leedahay shirkaddu. tani intii uu dhintay Steve Jobs waxa kaliya Apple ku soo kordhisay wax soo saarkeedii amaba product-yadeeda waa Apple Watch, oo ah saacad la shaqaysa telefoonada caaqilka, khaasatan kuwa shirkadda Apple soo saartay iPhone-ka, taasoo kuu sahlaysa inaad ka jawaabto ama ka wacdo telefoonada aad rabto, iyo weliba inaad ka akhrisato ama ka dirto message-yada. inkastoo shirkadda Apple si cad aanay ugu dhawaaqin, waxa saxaafadda caalamka inteeda badan sheegaysaa in shirkadda Apple ay gacanta ku hayso farsamaynta gaariga ah nooca isku wada ee aan lahayn darawalka,
kaasay ku loolamayaan kuna tartamayaan soo saarkiisa shirkada badan oo isugu jira kuwa sameeya baabuurta iyo kuwa tiknoolajiyadda intuba. haddaba markaad ogaato naftana u sheegto wax kastoo aad aragto nolosha oo jira dhinac kastana kaa xiga inuu sameeyey qof aan adiga garaad iyo caqli toona aan ku dheerayn, waa run inaad wax jira nolosha wax ka bedeli karto amaba ku soo kordhin karto wax cusub, saamayn iyo raadna ku yeelan karto. 1976 bilowgii hore shirkadda Apple shaqaalahaygu waxa uu ahaa labadan qof ee keliya inoo muuqda. maantana tirada shaqaalaha Apple waxa uu dhan yahay 115,000 oo qof. bilowgii iyo asaaskii hore kombiyuutarkii u horreeyay ee soo saaraan oo ahaa Apple One, qalabkii ama hardware-kii ay u baahnaayeen waxa uu ahaa mid deyn ama amaah ay kaga soo qaateen dukaan iibin jiray qalabka kombiyuutarada, sababtoo ahayd inuu jeebkoodu marnaa wax lacagaan ay gacantooda aanay ku jirin. haddaba 39 sano ka bacdi xilligii ay asaaseen oo ku beegnay sanadiina dhaaftay ee 2015 qiimaha shirkadda Apple waxa uu dhammaa $741.8 bilyan oo dollar, waxayna noqotay shirkadda kaalinta koowaad kaga jirta uguna qaalisan adduunka oo dhan, halka shirkadaha Microsoft iyo Google-na ay ku kala jiraan kaalmaha labaad iyo saddexaad. meeshii ugu horreysay ee labada nin ee asaasay shirkadda ay ku bilaabeen kuna farsameeyeen kombiyuutarkoodii u horreeyay waxa uu ahaa geeraajka guriga waalidiinta Steve Jobs, maadaama haba yaraatee aanay lahayn wax awood ay ku karaystaan amaba ku iibsadaan meel iyaga u gooniya. maantana heerku waatarka Apple waxa uu ku fadhiyaa baaxaddan 12.26 mayl oo isku weer ah, taasoo u dhiganta 18.12 kilomitir oo isku weer ah. dhinaca kalena waxaa gacanta lagu hayaa dhismaha xarun cusub oo noqon doonta xarunta ugu weyn ee ay leedahay shirkadda Apple, waxaana lagu wadaa in dhammaystiro sanadda fudud ee nagu soo haysa ee 2017 xaruntan oo ahayd mid uu qorshaheeda lahaa Steve Jobs ka hor intii aanu dhiman. waxa uu dhismaheedu ka socdaa magaalada Cupertino oo ka mid ah gobolka California ee cariga Mareykanka, waxaana ka shaqayn doona 13,000 oo ka mid ah shaqaalaha Apple. waxa kale oo ay shirkaddu leedahay 479 store ama dukaan oo lagu iibiyo produktiyada ama waxay shirkaddu farsamayso kuna kala yaala 18 dal oo adduunka. haddaba waxay tan tusaale cad u tahay kana marakacaysaa guusha, horumarka iyo isbeddelka qofka bini'aadanka inay tahay mid ku xidhan naftiisa. inuu qofku haysan dhaqaale maaha cudurdaar ku filan qofka inay ka joojin karto horumar uu noloshiisa ku sameeyo. waxaana tusaale kuugu filan shirkadda ugu weyn adduunka ee Apple uguna qaalisan ninkii sameeyey waalidkii dhalay dhaqaale darro awgii waxay awoodi waayeen inay soo koriyaan, waxayna siiyeen reer kale oo karsada. isagoo bilowgii noloshiisa hore ka warramayna waxa uu sheegay inuu ururin jiray faaruqa quraaradaha biibsiga kadibna cunto siisan jiray marka uu celiyo waxa yar ee uu ka helo. haddaba inaad tahay qof hadaf leh, naftiisana ku kalsoon, fadhigana ka kaco oo ficil la yimaada ayaa u ah fure horumarka iyo